mulki maxamed xasan waa hooyo haysata 7 caruur waxay halgan iyo dadaal dheer galisaa sidii ay u samaysan lahayd xirfado gacanta ah si ay mustaqbalka u noqoto mid shaqaysata. halkan waa xarunta tababarka horumarinta qoyska ee rasmi waxaa lagu tababaraa haween badan kuwaas oo barta xirfadooyin gacanta ah sida cilaansaar, make-up iyo cunno karin. waxa ugu badan ee goobtan wax ka barta ayaana ah hooyooyin oo ay ka mid tahay mulki. hooyadan ayaana waxa ay tusaale gooniya u tahay hooyooyin badan oo maanta awoodo inay xirfado bartaan haddana aanan isu dayin. barta xirfad yar ah macnaha ku shaqeysan kar nolosheeda ku maray karo wax badan ka faa'iido ma sha Allah macluumaadana qeyr Ilaahay siiyo 7 caruur ay joogto xaasaha wixii xoog la saarto waa la sameeyay wax walba anaga subaxii soo hagaagsan 2 saac guriga ka soo baxaa 3 saac halkaan jooga. xaruntan waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2018 iyadoo ay ka aflaxeen dhowr dufcadood oo kala duwan oo wixii ay barteen ku faa'iiday kuna shaqaysanaya xilligan. hadda waxaan ku suganahay xarunta horumarinta qoyska ee rasmi waa xarun ay ku tababartaan haween badan iyagoo ka faa'iida karinta cunnada, cilaansaarka iyo make-upka. xilligan waxa ay haweenku qaadanayaan maadada ama xiisada cilaansaarka. waxaa jira hooyooyin iyo gabdho badan oo xirfado ku haminaya inay mar uun bartaan xirfadahan oo kale balse awoodii waqtigu uusan u saacidin. kuwa badan ayaana ka faa'iiday barashada xirfadahan. rasmi waa aasaasaha xaruntan waxay iga sheekeynaysaa qaabka ay u shaqeeyaan, noocyada ay baraan hablaha, iyadoo iiga warantay gabadha ama hooyada halkan ka qalin jibisa inay la raadiyaan shaqo ama ay u abuuraan iyaga oo kuwa qaarna ay ka soo codsadaan goobaha shaqo ee markaasi ay xirfadahooda ku takhasuseen. waasantahay sida qurux badan aad nagu soo booqateen maanta waan kaga mahadcelinayaa. xaruntan waxyaabaha ay qabato waxaa kamid ah xirfadaha dumarka qaasatan cilaansaarka, cunno karinta, make-upka, harqaanka iyo waxyaabo kale fara badan sida ahaan lahayd farshaxanka oo kale. waxyaabahaas ay qabataa xaruntan. wallaahi haweenka dhigto waxay qofba wuxuu bartaa oo xirfad gaar ah bartaa oo jecel yahay. haddii ahaan lahayd cilaansaarka oo kale gabdho waxaa jira qaybta cilaansaarka aad u daneynaya xiiseynaya, sidoo kale qurxinta wajiga oo kale oo hablo waxaa jira aad u jecel ayagana make-upki oo kale. qofba siduu daneynaya ama xirfaduu rabo uu jecel yahay inuu ka barto xaruntan waa lagu soo dhaweeyaa wuuna ka bartaa taa. wallaahi xaruntan 2 dufca ka qalin jabisay, dufcadii saddexaadna waxay qalin jabin doontaa insha Allah goordho haduu Ilaahay yaraa. wallaahi dumar waa iska taqaanaa aad u jecel yihiin dhanka qurxinta kale. waxyaabaha ugu badan ee aadka diiradda xoog u saaraan waa dhanka iyo qurxinta wajiga ama make-upka kale, sidoo kale qaybta cilaansaarka kale. aad iyo aad hablaha aad ugu jecel yihiin inta badan xirfadahaas ay xoog saaraan muhiimadooda gaarka ay tahay. wallaahi wax walba bilaawooda caqabad leeyihiin, wax bilaa caqabad la'aan ma jiro. soo aasaaska meeshan oo kale ama goobta ay xarunta aan ka fur lahaay oo kale waxay ugu noqotay caqabad aad weyn oo muddo fara badan raadinayo, juhdi fara badan iyo waqti fara badan ayaga baxay. alxamdulillah dadaal dheer kadib kama quusan oo waan ku guuleystay meesha aan ka dhigi lahaa. wallaahi dufcado fara badan xaruntan ka baxday. ardayga markuu qalin jabiyo tusaale wuxuu ka qaataa iskoolka shahaadadaas markuu qaato ardayga markuu anaga dib noogu soo noqdo oo neeraa waxa u baahanahay meel aan ka shaqeeyo ama la egeeyo. waxaan garab ku siinaa in aan shaqadii aan la raadino ama meel uu ka shaqeeyo haddii ahaan lahayd arday bartay qaybta qurxinta oo kale in goobaha oo qurxinta oo kale aan geeno aan ku xirno. sidoo kale waxaa jiro gabdho ayagana meelo ama goobo qurxin sida bukayaarada kale u furan oo anaga nala soo xiriiro. ardaydaas oo kale oo aan ognahay xirfadda inay barteen ay active yihiin aan ku xirnaa si ay waxyaabaha ay barteen ugu shaqeystaan. arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay hal abuurada iyo isbedelada weyn ay sameynayaan haweenka Soomaaliyeed xilli walba taasoo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.